والله وحبا كفالي ماينو والله هو قرون ماينو والله عدك لهوس قالي ماينو تلالا دول بحانته برحالا aan cid kale hoos tagin waxaan ahay waxba ku fali mayno kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan oo barnaamijkani Dhambaal TV oo alaabad ka daawataan studio-yaga Dhambaal TV ee bariga Saudi Arabia waxaan idin daadiyay barnaamijkan anigoo ah Cawil Cismaan Jaamac Cawil Cagaare barnaamijkan alaaba waxaynu kaga hadalnaa maalin kasta oo Khamiisi baxayso Jimcana uu soo galayo waxyaabihii ama dhacdooyinka ugu dambeeyay deegaanada reer Khaatumo waxaynu soo dhaafnay isbuuc kadib qalalaaso iyo dib badan oo inala kulantay maanta waxaynu soo qaadanaynaa barnaamijku ama uu gaar u yahay shirka oo la sheegay inuu ka dhici doono rugta boqortooyada ee magaalada Saxdheer maanta waxaynu soo qaadanaynaa ama aynu ka hadlaynaa dadka reer Khaatumo maxay doonayaan waxaynu dhacdadii ugu dambeysay ee taleex ee lagu kala guray ama shirkii lagu qaban lahaa ay weerar ku soo qaadeen maamulka SNM waxa dhacday waxyaabo badan oo aan la filayn waxa soo baxday in shacabka reer Khaatumo ay ogaadeen Somaliland maxay rabtaa meeshiiba kamaysan maqnaan haddana waxa soo gudbay Puntland oo iyadoo la sheegay inay shalay tayla dorad la sheegayay inay abaabul wadaan waxaan idin sheegaynaa haddaan warbaahinta Dhambaal TV aan soo ogaanay markaanu xoggaal badan sameynay ama aanu dad badan oo u dhundalo siyaasadda aan la soo wareysanay waxaan ogaanay reer Puntland iyagu markasta inay wadaan dhibta reer Khaatumo markay ogaadeen Somaliland inay baxayso ama xabada ku baxdo ama caalamka hadaladiisa ku baxday markay ogaadeen ayaa waxay sidaahdeen bal idinku hadaba dul tago shacabka reer Khaatumo tuso inaad wax qabanaysaan laakiin si markaan xoggaal ama dad badan oo siyaasiyiin soo wareysanay waxaan ogaanay inay wadaan dhibtii farool inaga tagay mid ka daranba waxa jirta inay ciidamo geeyeen la yiri taleex ama ay keeneen Tukaraq laakiin se waxaan niman ku sugan Tukaraq laftigoodu waxay noo sheegeen ciidamadaasi inaysan uga socon dagaal Somaliland iyaguna ay ku wada socdaanba sidii ay shacabka ay u tusi lahaayeen ama ay oran lahaayeen dagaal baan idin la galanaa aysan taasina tahay been email badan baa daawadayeen horteedii inoo yaala oo lagaga hadlayo arrimahaas waxa kale oo inoo yaala barnaamij isaga laga soo diyaariyay Europe oo isagu markasta ay naga soo diro Ismaaciil Aftaag waxa inoo yaala isaguna barnaamij kale oo isaguna emailada aan ugu talagalay inaan idin soo gudbino iyadoo cod ah waxa kale oo yaala emailana loo soo diray qof kasta ama hambaliyadiisa dhiibo ama fikirka uu ku qabo shirka lagu qabanayo Saxdheer ama maxaa la gudbo shacabka reer Khaatumo waxa soo dhanba waxaan loogu soo diray email ama qoraal ha noqoto ama cod ha noqoto waxba waan idin soo gudbinaynaa balse inteena barnaamijyada dhan u gudbin inteena barnaamijyada dhan aynu gudagelinba aan idinku horeeyo emailadii ugu dambeeyay ee shacabka reer Khaatumo maxay ka yiraahdeen dhacdooyinka ay Puntland wado ama shirka lagu qabanayo Saxdheer aan idinku dib wariyahayna Maxamuud Salaad ee la soconad ku sugan ee daawasho wacan mahadsanid waliye Cawil Cagaare haatan ku soo dhawaada qaar kamida emailada naga soo gaaray dunida daafihiisa Axmed Nadaar waxa uu leeyahay labada su'aalood waa isla socdaan oo waxa weeye maxaa la gudboon shacabka inay sameeyaan waxaan aaminsanahay waa dagaalka Saxdheer ka dhacay waxaana inala gudboon dagaal Axmed Nadaar waxa uu leeyahay takalana waa xagee lagu qabanayaa shirka taas in hadda shir la galo aniga ilama haboona dhulka markaynu xoreysano meesha la rabo lagu qabto waa aragtideeda ma aha mid shakhsi kale ila wadaago Maxamed Dalmar waxa uu leeyahay tan la shirka Somaliland horeyna waan u maqlay dadweynaha Khaatumo see looga dhaadhicinaya Cawil Sulaymaan ila waxa uu leeyahay waxa keenay waxay arkeen in dhulka nin leh ku sii noolaan karo labo in bahasho ay daaroodii saaq tagayso saddex in caalamku aqoonsaday Khaatumo afar iyaguna aanay wali caalamka aqoonsan ka haysanin Hanaan Xasan Cali Liba waxa ay tiri waxa keenay inuu dhaho waxaan la shirayaa Khaatumo dagaalkii ka dhacay magaalada Saxdheer gaar ahaan jiida Galboob halka oo jabkii ka qabsaday ay ka soo yeedhay dhirtii iyo dadkii baan kala garaweynay labo waxa la gudboon dagaal in badan wada hadal wax ku doonay nabad raashay taasi socon weyday wiil hal naaskeed guraa intuu nool yahay waa in la dadaalaa sidii dhulka maqal loo hanan lahaana muhiimada koowaad la saaraa saddex hadalka beesha caalamka iyo dagaalkii Saxdheer oo ay yiraahdeen xafiiska Professor Cali Khalif Gaaray muxuu Sinaaye u gali waayay afar waa muhiim in la shiraa inkastoo shirarku bateen laakiin kan ha noqdo kii la isku afgaran lahaa qodobo wax ku oolahana ka soo bixi lahaayeen sida xoreynta iyo dagaal degdeg ah oo lagu galo sidii loo soo celin lahaa deegaanada Sool iyo Sanaag shirka lagu qabto Saxdheer ayaan oran lahaa waayo waxay hanatay wixii muuqdaa muhiim gala Saxdheer maaha mid hadda inagu cusub
ee waa meeshii ilaa 2007 halganka laga waday. Aisha Ali Saciid waxay leedahay tan shirka ah waxay ila tahay in lagu qabto magaalada ugu habboon oo ay madaxdeena gudaha joogto isla garato haday tahay Saxdheer ama Buuhoodle iyo meeshii kale ee la garto, waana in si degdeg ah loo dhisaa dawladda iyo golayaashii ciidankiina la ballaariyaa oo la xoojiyaa yaan maanta loo kala tagin. waa tacadowgeena rabee hala dhiso hana lagu dhawaaqo caalamkana hala gaarsiiyo, waxaana ku kalifay dhib dhinaca dagaalada gudaha kaga socda iyo dagaalka siyaasadeed ee dhinaca caalamka. haddaba annaga waxaa nala gudboon in ugu horeyn aan ka baxaan dhulkayaga oo dhan, markaa kadib wixii daris wanaaga lagu wada hadlo, haddii kale khiyaanay wadaan yaan lagu kadsoomi bay tiri. Muna Yuusuf iyaduna waxa ay tiri gobashu waa Saxdheer, meel kale oo lagu tashan karaa ay ma jirto, indha run bay ku ooyaan, Soomaalidii runtay arkeen, maanta ha laga dagaalamo oo hala dhamaystiro jiridda duulaanka kuwa magaceena iyo sharafteena. Axmed Soomaaliya isna waxa uu yiri muhiimaddu waa in dhulka la xoreeyo kadibna la helo meel dadku isugu yimaado, markaas la tashan karaa. Maxamed Maxamed wuxuu yiri dhulku waa uu balaaran yahay, meel diidaysana ma jirto in lagu qabto, laakiin muhiimaddu waxa weeye in lagu qanacsan yahay la islana qaato. waxaan oran lahaa Saxdheer iyo Xamar lagu xid mid uun ha laga dhigo shirka Khaatuma 3. Imaan Soomaali iyaduna waxa ay leedahay anigu waxa ay la tahay in sida ugu dhaqsaha haboon iyo meesha ku haboon in lagu qabto shirka oo la dedejiyo qabashada shirka Khaatuma 3. Cabdikariin Naayibisna waxa uu leeyahay wax shir ah oo lala gali karaa ma jiro, waayo gunnimo iyo gobonnimo darbadii ugu dambeysay baa hadhay, waxgaradka Khaatumana u malayn maayo inay ilduufi doonaan. Cabdiraxiin Maxamed isna waxa uu leeyahay inaadeer waa la tolay qasab ayaa laga keenay yaanan lala shirin ayaan oran lahaa, iyo shirka Saxdheer ha lagu qabto ayaan iyadana raacin lahaa. Cabdifataax Xasan waxa uu leeyahay salaamu calaykum, marka hore waxaan salaamayaa dhammaan shacabweynaha Khaatumo meel kastay joogaan, golayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta, dhammaan shacabka qaybihiisa kala duwan. in badan ayay kor iyo hoosba ugu gabiyeen nabad ku wada noolaanshaha. waxaa duhur cad dagaal lagu soo qaaday caasimadii kumeel gaarka ahayd ee Taleex, iyadoo intii ummaddan ugu mudnayd fadhido si nabadda geedka bardaha hoostiisa oo ay aayahooda ka tashanayaan. haddaba dhammaan madaxda iyo aqoon-yahanka iyo culimada, hooyooyinka, dhalinyarada, wiilal iyo gabdhaba waxaa la gudboon difaaca nafta, ehelka, maalka, waddanka iyo sharafta ummadda iyo shacbiga Khaatumaba iyadoo loo midaysan yahay. Mustafa Xasan Haaji Ismaaciil isna waxa uu leeyahay dhammaantiin waan idin salaamayaa bahda Dhambaal TV. guushii wax yar baa inooga hadhay insha Allah, waa intaasoo aynu uga sii dhawaano. ugu horeyn difaaca ha la xoojiyo, dagaalkana ha la dedejiyo, waayo wax aan la hurayn oo aynu markasta ku qasbannahay. waxaa kaloo muhiim ah dagaalka diblomaasiyadeed, waana waxa ka qeylisiiyay cadawga Khaatumo marka la yimaado dagaalkii u dambeeyay ee jiita Saxdheer. shirka waxaa lagu qaban karaa meel kasta oo dhulkeena ah, difaacina karta shirka oo amnigeedu sugan yahay, sida xarunta boqortooyada dhaqanka ee Khaatumo ee Saxdheer iyo xarunta xorriyadda ee Buuhoodle. shirkuna anigu waxaan qabaa in aan lagu faagin oo uusan dheeraan, looguna jadiidiyo madaxweynaha hadda xilka haya Mujaahidiin Bashir ku-xigeenna loogu dhawaaqo, waayo waxaa lagu jiraa xaalad degdeg ah. dadka ku abtirsada reer Khaatumo ee iska daa wax kale kala bakheeray in ay xitaa cod ku taageeraan dadka u halgamaya sharaftooda iyo karaamadooda. waxaan u soo jeedinayaa in ay nabadgeliyaan oo ay dacaayadda iyo kala dilidda dadka walaalaha ah iyo xumaka fidinta joojiyaan. qof walooba ogow in ay taariikhdu qormayso, waxaad buugga taariikhda Khaatumo ku qoratidna baa beri ku hor yaalla. waa mahadsantihiin daawadayaasha sharafta iyo qiimaha badan. waxaa intaa nagu soo dhammaaday bimeeladii ay noo soo direen qaar ka mid ah shacabweynaha reer Khaatumo, waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamuud Salaan Maxamed. haddana waxaa idinku dawayaa stuudiyoga Dhambaal TV ee bariga Saudi Arabiya ee magaalada Dammam oo ku sugan yahay wariye Cawiil Cagaare. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنا ku hadlaya magacayga iyo magaca golaha ardada daraawiishta Soomaaliyeed ee Suudaan, ardada reer Khaatumo ee wax ka barata dalkan Suudaan. waxaan rabaa inaan caawa anigana fikirkayga kala qayb galo Dhambaal TV. waxaan marka hore u mahad celinayaa halwadeennada Dhambaal TV
gaar ahaan cawil dhurde iyo dhammaan howlwadanadiisa waa u mahad celinayaa iyagana waxaan mahad celin iyo bogaadin u marinayaa halkan golayaasha maamulka khaatumo oo ugu horeeyo madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Khaatumo Korneyl Maxamed Yuusuf Jaamac Dhasheel waxaan iyaguna hambalyo iyo salaan iyo u marinayaa hawada golaha G10 gaar ahaan Dr. Ali Ciise Cabdi gudoomiyaha golaha G10 iyo Professor Ali Khaliif Galeyd labadaba iyagana waa u mahad celinaya iyo dhammaan golaha G10 waxaan kaloo iyana u mahad celinayaa iyo bogaadin halkan rabaa inaan u mariyo golaha dhaqanka oo ugu horeeyo garaadka guud ee garaad Ali garaad jaamac iyo haliyeyga reer Khaatumo garaad Ismaan Maxamuud Mashaqare iyo dhammaan garaadada kale oo dhan hawsha iyo halganka ay ku jiraan iyagana waa u mahad celinayaa waxaan kaloo iyagana rabaa inaan bogaadin u diro ciidanka qalabka sida ee Khaatumo ee howlgallada muhiimka ah dhawaanahan ka fuliyay aagaga hawdka iyo nugaashaba intaa kadib markaan u soo laabto labadan qodob ee caawa halkan la isku dhaafsanayo ra'yadooda qodobka koowaad oo ah goobta shirka ugu muhiimsan ee shirka lagu qaban karo ama makaanka ugu muhiimsan kolba anigu ra'yigayga waxaan qabaa in shirka lagu qabto magaalada Saxdheer waxaana taa u sababeynaya kow Saxdheer oo u dhow gobolka Sool ama caasimadda oo yoolkeenu yahay labo meesha ay ku taalo oo maaragtay magaalada Saxdheer makaan istiraatiiji ah dhawaan barabadan timan tagay makaan istiraatiiji ah markaan leeyahay waa meel haddii halka dagaal ka dhaco ama shirka la soo weeraro loo soo ciidamin karo oo ciidanka ka soo baxa Boocame iyo Taleex iyo Carooley iyo Xudun iyo Holhol ay si fudud ku soo gaari karaan ciidanka ka soo baxa xaggan hawdka Woodward iyo Xamar lagu xid iyo Buuhoodle ciidanka ka soo baxa jiidaha hore ee hawdka fog dhammaan si fudud ayay ku soo gaarayaan waa meel wadooyinkooda furan yihiin oo halka hadii ama matalan ay noqoto dhaawac oo kale si fudud loo geyn karo hawdka caynta oo kale cayn oo kale Woodward oo kale meelahaas oo dhan way ku furan yihiin waa meel aan haysano dhul aag furan oo aamina oo aan waxyaabo badan ay inoo suuragal tahay waxa kale oo iyana muhiim ah in aan la banayn gobolka Sool hadii shirka laga raro gobolka Sool oo matalan dadka qaar rajaxayaan in shirka Buuhooda lagu qabto kale xoogaa waxay inagu tahay inaga liidnimo oo inaan Taleex laga soo tago Saxdheer laga sii tago oo halka yacayn loo wajaho xoogaa waxay yar noqonaysaa wajigabax in halka broosinka lagu aasto difaac adagna laga xidho baan anigu rajaxayaa hawlaha sababaha awgood shirku waxay ku fiican tahay in Saxdheer lagu qabto saasaan kulba anigu fikirka ka qabaa fikirka labaad ee isna la isweydiinayay ah cabaadka ka soo yeeray qolyahan SNM-ta iyo qaylada ay meelahan hadda la cararayaan kolba anigu waxaan u jawaabi lahaa nimanka SNM dalkeennii bay haysataa jawaabta kaliya ee inaga inooga baahan yahay waxa weeye inaan dalkeennii iyo deegaankeenii aan xoreyno taas uun bay jawaab noqonaysa waa ogahay oo arrimaha dibadda waxyaalo badan bay ka qabteen golaha G10 iyo golaha xukuumadda iyo golaha dhaqanku haddana waxaa loo baahan yahay in arrimihii dibadda ee la soo qabtay iyo diblomaasiyadihii caalamka laga soo gaaray lagu kabo hawlgal gudaha in xoog la saaro oo wax la dhaqaajiyo ayaa muhiim ah taas baana iyaga jawaabta ugu filan oo aynu dalkeena iyo dadkeena inagu maamulo oo dalkeena aan xoreysano waayo diblomaasiyad kaliya wadanka wax lagama qaban karo wadanku wuxuu u baahan yahay diblomaasiyad plus lagu daray dadaal gudaha ah oo la og yahay gudaha wuxuu u baahan yahay oo maartay nin fariidna waa og yahay nacsan loo sheegi maayo waxaana taa tusaale kuugu ah dhaqdhaqaaq yaraa ee laga sameeyay aagga Saxdheer adduunku sidoo u qayliyay haddii ilaa berigii diblomaasiyadii aynu haysanay iyo confirmka adduunka aan ka haysanay iyo maamulka Muqdisho ee taagta daran waxaan oran lahaa inta hadaynu ku dari lahayn dadaal gudaha ah wax badan baa inoo qabsoomay lahaa Khaatumo maanta waxay u baahan tahay gudaha in wax badan laga qabto in dadku way kala baxayaan munaafiq iyo munaafiqalkaal hawada way ka baxayaan in inta daacadii marka iyadu israbta ay wax dhaqaajiso oo cajalada wareejiso hiil iyo hoona dhammaan dibad iyo gudaha waa laga garab taagan yahay taasna intaas baan anigu soo koobaya waan u mahad celinayaa dhammaan dhageystayaasha reer Khaatumo meel kasta joogaan waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum kaasina wuxuu ahaa Maxamuud Salado isagoo ku sugan magaalada Laascaanood daawadayaal waxaa jira website badan oo iyagu markasta ka hadla xumaatada ama deegaanada reer Khaatumo dad baa wax iska dhaadhiciyeen ama ay ugu tala galeenba sidee u noqon lahayd
sidii qof caan oo kale waxayna noqotay in ay xumaan mooye wax kaleba soo gudbeen laakiinse ma kullaad jinsiyad ma jeerteen ama jinsiyad isaqleeya aad qaadanaysaa waa maya haddaad wax caayaysid ama aad maagaysid waa inaad mar walba dadkaaga runta u sheegtaa websaydyada aynu ka gudubno dhacdada kale ama daawadahayaasheeda mar walba waxaynu ogeysiinaynaa dadka noocaasa inaysan marnaba iyagoo iska saaraan aysan uguna talagelin inay fikirkooda qaataan waxaanu soo qaadanaa Ismaaciil Aftaag oo isagu inaga soo qaybta Cardiff inoo joogo studio-na Dambal TV oo isagu soo diyaariyay barnaamij dhan oo isagu dhacdadii ugu dambeysay ha noqoto maamulka Faroole iyo Cabdiweligaas maxay ku kala duwan yihiin shirkii Khaatimo maxaa sababa in xagga loo bedelo iyo email badan oo iyagu ka yimid Mareykanka London iyagana ay idin soo gudbiyo iminkana idin ku dhaw Ismaaciil Aftaag Ismaaciil waad mahadsantahay Cawil iyo daawadayaasha ku xidhan Dambal TV markii dhidibada loo taagay maamul goboleedka Khaatume State of Somalia horaantii 2012 waxaa madashii shirkaasi ka soo qayb galay ergooyin kor u dhaafay 345 waxaana ergooyinkaasi subax walba ku soo xaadiri jireen geedka weynaa ee Barda Khaatumo waxaa intaasi wehelinayay marti sharaf kale oo iyaguna goobjoogayaal ka ahaa kuwaasi oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa isaga kala yimi haddaba madashaasi oo lagu unkay maamul goboleedka Khaatume State of Somalia durba waxaa ku bilaabmay dagaallo siyaasadeed oo kaga imaanayay maamulada hareeraha ka xiga kuwaasi oo ku caanbaxay sheegashada shacabweynaha Khaatume State of Somalia balaynu ku horeyno maamul goboleedka Puntland daawadayaal xilligii uu ka talinayay madaxweyne Faroole wuxuu ahaa mid aan bareerihiisa la gaban jirin waxyaabaha lagu xasuustana waxaa ka mid ahaa isagoo argagixiso ku sheegay deegaanada Khaatume State of Somalia wuxuu had iyo jeer ku celcelin jiray walaalahayaga Somaliland isagoo uga dan lahaa ku xumaynta shacabweynaha Sool Sanaag iyo Cayn wuxuu mamnuucay in xilligaasi laga dhoofo garoomada diyaaradaha ee Puntland wuxuu lug weyn ku lahaa xasuuqii Taleex ee madaxtooyada Puntland laga soo maleegay asaate intii uu maamulkaasi la wareegay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wuxuu isna halkii ka sii ambaqaaday colaadii siyaasadeysneed ee Faroole wuxuuna markiiba si ula kac ah badheedh ah oo colaadi ku jirto oo xilal ugu magacaabay rag dhibaatooyin waaweyn ka geystay maamul goboleedkii Khaatume State of Somalia isna wuxuuba noqday ka dar oo dibi dhal daawadayaal haddaba sidaan la wada soconno markii lagu dhawaaqay shirweynihii saddexaad ee maamul goboleedka Khaatume State of Somalia kaasi oo la doonayay in lagu soo dhiso maamul goboleed rasmi ah hase haatee madashii shirkaasi oo ka furanmay magaalada taariikhiga ee Taleex 8 bishii Juun ee 2014 waxaa duulaan qaawan ku soo qaaday maleeshiyada ismahadisay ee maamul goboleedka Somaliland waxaana arrintaasi keentay in goobo badan oo ka mid ah deegaanada gobolka Sool ay isku farasaaraan maleeshiyada SNM waxaan ka taageerayaa warbaahinta iyo dhammaan shacabka reer Khaatumo qurbajoog iyo gadajoog waxaan aad u taageerayaa oo aan aad u salaamayaa oo soo dhaweynayaa shirka Khaatumo 3 ee ka furtay Khaatumo anigoo si gaar ah ugu mahadnaqaya una salaamaya dhammaan intii u dhalaaleegtay ee xabadda iyo gaajada iyo dibka iyo qurbaha u wareegtay ay shirkaas qabsamo oo maamulkaas lagu dhawaaqo oo loo dhiso aad iyo aad baan dhammaantiin salaamaya hadaatiin T11 hadaatiin golaha xukuumadda hadaatiin golaha dhaqanka yanaad iyo aad ugu hambalyeynaya ilaahay ka dhigo shirkii waara ee meedha ee wax macquula oo meedha ka soo baxaan oo dhibkii aan loo soo maray aan kaga haysano magacaygu waa Samson Axmed Jaal waxaan doonayaa maanta inaan halkan ka hambaliyeeyo shirka Khaatumo 3
ee ka dhacaya magaalo madaxda kumeelgaarka ah waxaan u rajeynayaa intii qabanqaabisay iyo inta joogta ee hawsha ugu jirta in ilaahay uu ku guuleeyo hambalyaanu leenahay gaar ahaan waxaan u salaamaynaa dadkii aada isugu taxalujiyey shirkaasi inuu qabsoomo jiitan ha noqoto golaha madaxtooyada ha noqoto golaha dhaqanka ha noqoto aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa ilaa iyo guuta koobaad oo aan marnaba meesha ka maqnayn la gabarna u ah sideedaba maamulka khaatumaysteeda soomaaliya guul baan idiin rajeynayaa insha allah biidnillah waxaanu leenahay waxaanu ku damaashaabi doonaa meel kastoo aanu kala joognaa adduunka daganadeeda insha allah ka baxay shirkan aad baan u salaamayaa boqolkiiba boqol baan salaamayaa shiileed baan salaamayaa siyeed baan salaamayaa kuwii usoo dhabar adaygay dhibaatada iyo hawshaasaan salaamayaa ragga noo agaabulaya noo tabanayaan salaamayaa cidii waxalaalay wixii qarada iyo wixii khaatumo taageeraan salaamaya shirkana wuu tahneedinayaa waanu raxsanahay waana joonaynaa waana muxuu ahaayey diin iyo hooba waa la garab taaganahay haddana waxaa ku xigaya cabdiraxmaan xasan yuusuf assalaamu calaykum dhammaantiin wadi salaamaya oo soo xidhay wagala shaqaynaya dhammaantiin boona wada salaamaya waxaan hambalyeynayaa shirka saleex waxaa ahay midnimo waxaan ku taageerayaa siday ugu dhowradeygeen midnimada iyo beedeedi daawadayaal maanta barnaamijkeena ama aynu ugu talagalnay dhambaal t v waa xog raadin aynu ugu talagalnay mar kasta iyo goor kasta fikirkaagu ama taladaadu waa u muhiim shacabka reer khaatumo dad badan waxaad arkaysaa koranaya nin isagu kasoo jeeda deegaanada ayaa wax koranaya war khaatuma meeday bal adigu horta wax iska dhig markaad adigu wax iska dhigtid bal maag cidaad maagaysid laakiinse bal adigu markaad wax noqotid ma jirteen baa tiri Soomaaliland saa doonto wala maran laakiin bal horta adiga waxba ahayn inaad maalin walba cid maagtid waxaan u maleynayaa in adiga ceeb ku tahay daawadayaal anigoo ah Cawil Usmaan Jaamac Cawil Cagare waxaan idin xasuusinayaa mar kasta emailada shaashada saaran mar kasta inaad noogu soo diri kartaan wixii fikirkaaga ama taladaada mar kasta ha noqdo fikir saliim ah oo waliba shacabka reer Khaatumo oo dhan ay ku qanci karaan laakiin ha noqonin nin wax lagu shubto hana noqonin nin fikir qaldan laga dhaadhiciyo sida iyo kulanti dambe